bulshada ma arrimahaasi ka faaloota inta badan waxay dhahdaan reer awdal markay arrimo ismurgaan ay timaado ee cabasho ay taagantahay ayaa kaadhkaas la xoqdaa adiga arintaas ma laamsantay anu dhadhaarmay anu inay hebel baan ahay hadda inay hebel baa tahay tolbeed ka soo jeedaa tolkaa dhadhaar ma aha falsafadan markaa dhadhaarnimada dad baa sameeyey tilaalin baa loo soo dhiibay oo layna dhex keenay ka filay Axmed Yaasiin inuu hadalka ka garaabo gobi cadeed tahay inuu ka garaabo oo dadka u yimaad dabadeetana raaligelin ka bixiyo dan wabar mabda uu aaminsan yahay balaya afka laga madhowro waa Awdal State Somaliland waxay ku diidan tahay waa Awdal State wax la dhaama jirtay qaran Somaliland waa jiray aaminsan tahay damaad ka mid tahay adigu saad sheegtay madaxweynaha dhadhaarka afraad sida iyagu ay sheegaan sababta ugu weyn aad u suluugsan tahay maxay tahay maxaa sababta in laga qanciyo leeyahay awdal way goosanaysaa maanta bal waxaad ii sheegtaa halkay qaban lahayd marka intii qabiil oo ku midoobay lagu yaqiinba ma laha hal shay bay ku bohobeen say sheegayaan halka shay ku bohobeen waxa weeye siyaasadda munaasabta siyaasadeed iyo boobka siyaasadeed iyo limada siyaasadeed ay ka qaataan inuu taweel wuxuu iyaga gaar ahaan ugu soo dhaco ama la isma barbar dhigi karaba de maanta sool iyo awdal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونحسن دعوة لدلهانتين بهالكن وتلفزيون كعالم صوتي في حرونتي سوكولة مقالة بورم يا حرونتا قبل كأوضل دعوة ديال هبي كان عوا استوديو تلفزيون صوتي في وحي قلصوغان عبد الرحمن حاج حسن وكمدا دلنيرة داقوية هنك سومالي لانجرهان قبل كأوضل إنه قريب وكسودو وينيا إن كسودو استوديو تلفزيون صوتي في أديت بنقول واي جمال تي في هير قرن صوتي في وندوه سلطان وبر ونن مبدأ آمزن وسلطان مبدأ وآمزية سومالدو waxay tiraahdaa hadan la rogrogin bahasha rag baan helin Sultan Wabar waxa uu rabo iyo Somaliland waxay rabto labaduba waa babaadi ishirdinay way waxay ku xiran tahay in sultaanka iyo Somaliland ay soo fadhiistaan marka labada ra'yi lagu qanciyada sultaanka waxay Somaliland tahay maanta waxaanu ku dhaqanaa qabyaalad siyaasad ma lama saadaalin karo lama oran karo dad uu ka maran yahay maalinta caawan joognaba hadalka uu yiri oo Somaliland loo arkay meel ka dhacin ku yahay hadana dad jamhuur buu ku helayaa oo waxay tagaysaa inay qabyaaladu ka koreyso mar waliba qarannimada Sultan Wabar mabda uu aaminsan yahay balaya afka laga madhowro waa Awdal State Somaliland waxay ku diidan tahay waa Awdal State wax la dhaama jirtay qaran Somaliland waa jiray aaminsan tahay marka waxan waa conflict of interest danta uu wato Sultan Wabar iyo danta ay wadato Somaliland danahana isdiidaya qofkana mabdiisa ay wata kanabadiisa hadii marka aan la wada fadhiisan laga hadlin oo laga xaalin waxay keenay doontaa maalmaha kamid ah inuu ra'yigaasi xoogaysto oo dhayashi aan gali karin Somaliland waxay leedahay xuduudo go'an xuduudaha kuma jiro wuxuu joogaa Soomaaliya waxayna u muuqataa in looga faa'iideynayo siyaasad ahaan in lagu cabsi gelinayo Somaliland baan ila muuqataa laakiin wax wali foundation kiisa uu dhisan yahay oo base leh ma aha waxaa jirta qaacido guud oo hadii ba la dhaahdaa waxaad bedelayso waxaad ku bedel lahayd oo ku diyaar ahayn waxaad rabtaan jirinba bulshada ma arrimahaasi ka faaloota inta badan waxay dhahdaan reer awdal markay arrimo ismurgaan ay timaado ee cabasho ay taagantahay ayaa kaadhkaas la xoqdaa adiga arintaas ma laamsantay aad baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay walibana anigu ka Cabdiraxmaan ahaan waxaan aaminsanahay hadalka uu Sultan Wabar yiri shalay ilaa maanta suuqa dhex socday reer awdal waxa uu tara mooyaane waxba kama dhimayo
oo haddii lagu hadlo luqadii qabyaaladaysneyd hadalkaas Suldaan Wabareri wuxuu dhalayaa in munaasibta ama kororsiimo munaasibeed oo siyaasadeed ay ku helaan dadkeena waa sida marka aragtida saxda marka halka laga eego way dad iyagu dana gaaban kale hina way jiraado hadalka suldaanku yiri dilaalaya oo meel kale ka tuuriyo dilqaafna u geysanaya salaadiinta una noqon meeno deetaan ka hadalay qaladkuna u dhacaa laakiin gobi cadeeyna ka garwado qaladkaaga ma aragtidaada markaad eegtid Somaliland iyo sidoo kale gobolka Awdal bulshada ku dhaqan gobolka Awdal inta badan waxay markay cabanayaan waxay yiraahdaan waxaan nahay dad xoog lagu haysto inta badan carabkooga arintaas baa ku celceliyaan reer Awdal ma muuqdaan dad la haysto 2006 laga soo bilaabo ilaa 2024 bishii 11aad oo ka soo wareegay caasimadda inta caasimaddan ka shaqeeyay hadda dib u raacdo taariikhdana maxamed xaji ibraahim cigal mar la wareystay 1994kii iyo su'aasha la weydiiyay caawada weydiinayso wuxuu ku jawaabay lama arag ama lama maqal beesha dhexe ee walaalaheena أنا أودوذاك تنهي إلى هاس كم بضي مال أنت سوي مادين إلى هذين وإنه كوجو ميسنه كذا بورسي لما هي تاريخه لكن فلسفة وي تذكر بس أنا رجوب بديسا وحال هذا وكونسبيرسي ثيوري بلد هذا أركتيا هاسي تذكر بوحي فافيان ونهيو أيجو أركيان إن مردل يلد دوتو وسياسات laba aragtiyood ayaa jira bahasha la yiraahdo conspiracy theory-gu waa mu'aamarado waxay ka soo fushaa dad iyagu quuta dhiiga dadka ayna ugu dheerayso ugu badiso qallaasaha iyo buuqiya rabshada markii guga carabta u dhacay guga carabta markuu dhacay waxa ka dambeeyay oo soo dhax galay wadamada Middle East ka loo yaqaan ama wadamada carabta intooda badan aan dhaano waxa soo gashay UN peacekeepers ka qolyahan loo yaqaan ba soo gashay iyagu waxay ka lahaayeen guga carabta oo batay oo fiday meel badan buu ka dhacay waxa dhacay markaa in carabta gudaheedii loo caalwaayo in la nabadeeyo marka qolyahan UN peacekeeper-ka ah ee dhex socda ee iska dhigayna nabad dhalinayaan oo dadka nabad ku soo dabaalayaan oo ay ka shaqeynayaan nabadda ayaa at the same time waxay ka shaqeynayaan khilaafaad inay abuuraan aanan kala go' lahayn si ay ugu sameeyaan fartaysi khayraadka dhulka yaala markay muddo arrinkaasi socday ay khayraadkii carabtaasi in badan oo kamid ah gacanta ku dhigeen maamulkii wadamada carabta gacanta ku dhigeen ay isku arkeen markaa inay iyagu ay yihiin the king makers kay doonaan ay keeni karaan kay doonaan ay adi karaan ayaa waxay u soo dhajiyeen falsafad oranaysa wadamada carabta awal loo caal waayay wax nabad laga sameyn karayna ma jirto markaas waxay soo qaateen statement ay inaga isticmaalaan ay oranayaan waxay galeen wadamadani Somalization state macnaheedu waxa weeye waxay galeen xaal dalka Soomaaliya oo ku jiro ah aan la nabadeyn karin sidii Soomaaliya oo kale ayaan loo nabadeyn karin dalalkan carabta marka waxay dhigteen Soomaalidii momentum of conflict astaan ama cabir loo qaato khilaafaadka ayay ka dhigteen marka waa fikrad oo falsafad at the same time innaga falsafada la keenay dhexdeena ee dhalaysa in maanta ugaaska wax laga sheego ee keensanaysa in suldaan milkiye sharaf wax laga sheego waa tafraar ku dhexdeena oo marag madoona
anigii dhowr dhinoo kale oo caqli u saaxiiba ayaa su'aalo badan noocaas isweydiinay horta waxay leeyahay maadiya gobolka awdal maanta dhalinyartiisu boqolkiiba 95 waxay ku baraarugsan yihiin waaqaca iyo wadciga dhulka yaalay ku baraarugsan yihiin waxay ku baraarugeen weli kala duwan yihiin dowladaha kala nasiib badan dowladdiina cigaalo kale dadku saa uma sii aqoon dowladnimada laakiin hay'adaha dhulka ka shaqeynay dhalinyartu wax baratay hay'adaha ku foofayeen dowladdii daahirayaale iyadna dariiqaasun bay qaaday dowladdii siiraayay markii la yimid ayay dadku barteen dowladnimada iyo dowladda in loo shaqo tegi karo si marka loo yidhaana organizationka ugu weyn maanta dalkeena ka shaqeeya loo wada shaqo tagay waa dowladda weeye dhibka markaa ay dadku isku jiidanayaan waxa weeye organizationkiiba waxa isugu imanaya intaasoo qof oo kala duwan oo wada camal la'aan hayso hirdanka shaqo ayaa waxa keensanaysaa in diiradda la isku wada hayo qofka la shaqo geynayo halka loo shaqo geynayo marka dhalinyarta aan anagu isku soo caqliga isku keennay waxaynu abuurnay fikradan abuurnay waxa la yiraahdaa the theory of disunity aragtida tafraaruqa waxaynu ku salaynay saddexda dhadhaar anu dhadhaar may anu inay hebel baan ahay hadday inay hebel baa tahay tolbad ka soo jeedaa tolka dhadhaar ma aha falsafadan markaa dhadhaarnimada dad baa sameeyey dilaalin baa loo soo dhiibay oo layna dhex keenay shacabkina way isticmaaleen waxaan uga socdaa inta halkaas su'aaliga weydiin waxaan uga socdaa dhadhaar marka la yidhaa waa waxaanan damqasho lahayn dagaagax lahayn aye oo Soomaalidu waxay tiraahdaa dhadhaarku taabasho iyo tantoomo waa isugu mid si unbu wada dareemaa magacuna waa kuhaan wax magac la dhahay waa kuhaan haddii magacu kaa xumaado kuhaan buu noqonayaa waxaad soo soo qaadataa magacaagu noloshaada qayb buu ka yahay sida ayuu hugaagu uu kula baryo tago ayuu magacaaguna kula soconaya haddii markaa magacu kaa xumaado dee noloshaada qayb buu ka yahay inaga tafraaruqeenna kala tegeenna isqabqabsadkeenna magacaasa ka kowa oo astaanba u ah kala teg tilmaamaysa tafraaruq tilmaamaysa yarkii dacwooday ee aabihii iyo isaga loo gar qaaday wixii ugu horeeyay la weydiiyay wuxuu ahaa maxaad waalidka u caasidaa idcaaqa ugu tahay yarkaasi wuxuu ku jawaabay waxaan waalidkii caaq ugu ahay saddex shay baan ka waayay buu waalidkan xaq ugu lahaa waa midda koowaad ee inaga naqusaysa aabahay magac fiican baan xaq ugu lahaa buu magac fiican inuu bixin oo juclaan bii bixiyay buu marka halka waxa ka cad magacaagu wuxuu noloshaadu qayb ka yahay aragtida marka aan soo drive garayna anagu waxa weeye aynu ku salaynay disunity-ga tafraaruqa aragti odhanaysa saddex dhadhaar iyo dheri saddexdan dhadhaar horta ma jirto reer geedi galaya oo reer baadiye ah ka reer baadiye markay geediga galayaan geedi loo lalabayo dhadhaarada ay dheriga ku karsanayaan dee ma qaataan meel kasta dhadhaar way ka helayaan dhadhaaradan meeshay kaga tegayaan meel kasta ay tagaan dhadhaar way ka helayaan ay dheriga ku karsadaan inagna waa mushkiladda haysato oo saddexda dhadhaar ee ku saleysannahay marka dheriga lagu karsado halkaas laga tagay saddex kala la sameeyay halkaas ku imanaya source of disunity-gu oo dhadhaaradani marka depiction baan sameeynaa dhadhaaradan la isticmaalay saddexda ah saddexdooduba waxa isku jiraan masaafad go'an una midka kale uga soo gurman karin dhibka saddexdan dhadhaar waxa la kala dhex dhigay dab laga dhex oogaa si dheriga u karsamada
dabka laga dhex oogayay kana dhib buu ku hayaa kana dhib buu ku hayaa kana dhib buu ku hayaa haddana intay isku yimaadaan dhibka kama wada xaali karaan aan ku yar dhamayo in yaraan ku daro hal qodob baan ku darlaa aragtidaas marka waxay odhanaysaa dherigan saddexda dhadhaar saaran dhadhaaradani wax anfaaciya ma ku qabaan waxaanu isla garanay anfaaciga ugu weyn ee dhadhaaradaasi dherigaa ku qabaan waa inta karkoo ka keeno ee ka daadanaysa ee guudkooda ku daadanaysa hanfiga iyo holaca dabka ka soo baxaya dhibka ku hayo waxaa u dheer culayska uu dheriga ku hayo haddiise la sameeyo hal mid oo dhadhaaradaasi si uun la isugu soo dhaweeyo oo dabka ka dhex oogan laga dhex qaado dherina karsami maayo dherina karsani maayo wixii markaa u danana waxa weeye inay isku yimaadaan waa tahay waxaad ka sheekaysay saddexdii dhadhaar gaar ahaan deegaanada gobolka awdal waqtigii ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Somaliland waxaa soo baxay dhadhaar afraad la yiraahdo oo madaxweyne la yiraahdo saddex dhadhaar oo sii jiray waan ogeyn dhadhaar afraad oo madaxweyne la soo baxay arrimihii doorashadii uu ka qayb galay ololihii waxaana uu ilaa hadda sheegtaa inuu dhisay madaxweynaha hadda dalka ka arrimiya ee madaxweyne Ciro inkastoo la yiraahdo dalado ayaa ku midoobay madaxweynta oo siyaabo kala duwan arrimahaas looga hadlo adiga aragtida aad madaxweynta ka qabtaa maxay tahay madaxweyne horta waa magac ka mid ah magacyada kuhaankan ku sheegayo saddex dhadhaar iyo madaxweyne iyo waa magacyada kuhaanka ah ee garabdaarka ah inala socda madaxweyne horta waa fikradani fikrad imika curatay ma ah waa awal hore qabaylkii la isku oran jiray bahama kaahil ba raganta isku tageen ay soo nooleeyeen ay boorka ka jafeen ay magacan u bixiyeen inkastoo qaladaad badan ay ka muuqato sida qaylibkaana waxaa la yidhahaa fikirka qofka lama dilo laakiin qofkani siduu fikirkaa ugu qancin lahaa ayaa ka muhiimsan inaad maramo kala hortagto madaxweyne maxaad ka qabtaa iyo ma raacsan tahay iyo see kula muuqataa arinku ku odsheeya anigu dabcan qabaylka ku midoobay mid ka mid aan ahay madaxweyne markaa haddii ay tahay mid jirta waxay noqon lahayd dhadhaar afraad dhadhaarka afraad waxaa ka dhalanaya su-aal waxaynu odhanaynaa saddexdii hore jiray ilaan saddex dhadhaar baa jiray soo ma saddexdii dhadhaaree hore jiray maxaa faa'iida lagu qabaa muxuuse soo kordhinayaa dhadhaar afraadoo kusoo biiraay aan ka ahayn khilaafaad hor leh iyo dadku inay kala hordhoobaan oo kala tagaan muxuu faa'iideynaya markaa waa su-aal meesha taalla ma ogtahay haddiise la rabo madaxweyne inay shaqayso ani ra'yigayga wey waa in la helaa sharci iyo nidaam ay ku kala socoto waa in laga qayb geliyaa sharciga iyo nidaamkaasi bulshada heerarkeeda kala duwan culimadii laga geliyaa indheergaradkii aqoon-yahankii dhalinyartii haweenkii soo garan maysid ta ugu muhiimsanna waxa weeye qoladan madaxweyne maanta la leeyahay
toddobada qabiil ku bahoobay daladaasi horjooga u jooga qabiil waliba horjoogahaasi wali ma haysto mutual recognition la iskuma raacsana la iskuma waafaqsana wixina waa mabda'ana qofka waa lagu qanciyaa ee laguma qasbo laguma joobo haddii markaa ay la rabo inay sii shaqayso kullinba waxay ka mid noqon doontaa unta faraaruqaase waa in la helaa in horjoogo waliba dadkiisii ku soo noqdo uu mabda'an wado dee bayaan ka sameeyo uu akhriyo ama markaa ha lagu raaco oo ha la idhaho wallahi mabda'aasoo qurux badan way naafacaya iyo mayna ma anfacaya dee wax kale nuga wareegno taasay ku xidhan tahay aad ma aaminsantahay inuu sii jiri doonto dhadhaarkan afraad leeyahay madaxweyne inay sii jirto aniga kale inay sii jirto inay sii jiri weydaay waxay ku xidhan tahay uun sida in loogu qanciyo anaga imka dad baa abuuray sooma dad baa mashruucani soo qaatay inkastoo bishii 2023 baan filayaa bishii shanaad meelahaasi la qabtay munaasabadii ugu horeysay ayna ka qayb qaadatay 13 November 2024 doorashada ka qayb qaadatay iyadoo hal sano jirta ilaan umul baaba la 40 bixiyay xawaaraha inta leeg ay jartay haddana yeelko aniga cid baan ugu tasha say sheeganayaan laakiin waa inay nagu qanciyaan horta anaga maadaama aad ka mid tahay adigu saad sheegtay madaxweynaha dhadhaarka afraad sida iyagu ay sheegaan sababta ugu weyn aad u suluugsan tahay maxay tahay maxaa sababta in laga qanciyo niyo anigu sidaban waxaan aaminsanahay u ka sareeyaa mabda'aygu in la kala tagtago tafraaruq la sameeyo ama la muujiyo waxaan ognahay baasha dictatorship ka leedahay mar bay faa'iido leedahay inta badan khasaaro ku sugan halka shay dimuqraadiyadda kaga fiican tahay waxa weeye waa hal xisbi baa dalka ka talinaya meel uu cadow u soo maro ama cid uu soo adeegsado ma laha innaga oo saddex dhadhaar ahayn oo ogtahay xaaladaynu ku jirno sidaynu u kala fadhino sida la soo keen soofaynayo dhadhaar afraad hadduu soo kordhana waa adeegsigiisiyoon wax faa'iido ah ama ma fuuco keenayo ma laha war hadda eeg iminka waxa ilaahay wuxuu yiri waxaan naga abuurnay qabaayil iyo shucuubku community oo boorma dadku maanta community way haddana community-ga waxaan ka nahay qabaayil baynu ka nahay Soomaa qabiilkii ujeedada loo abuuray inay dadka iska aqoonsadaan inay dibtii dheefta wadaagaan inay magta iyo mawlaxada wada bixiyaan dad yawgan la isku keenay iminka toddobada qabiilka kooban dee ma wada bixinayaan mawlaxana ma wada bixinayaan aaskana dadka loola sameeyay marka intii qabiil oo ku midoobay lagu yaqiinba ma laha hal shay bay ku bohobeen say sheegayaan halka shay ku bohobeen waxa weeye siyaasadda munaasibta siyaasadeed iyo boobka siyaasadeed iyo limada siyaasadeed ay ka qaataan inuu taweel wuxuu iyaga gaar ahaan ugu soo dhaco waxa ay ku andacoonayaan leeyihiin waan dulmanayn oo waxaan la dulminayay egas iyo way tusaalahan egas oo reer hebela iyo way oo reer hebela laakiin haddii shuruucda iyo qawaaniinta aan sheegayn la waayo oo la qori waayo oo nidaam iyo kala dambeyn la samaysan waayo waxay ila muuqataa aniga waxaynu maqli jirnay maamul daadajine dulmi daadajin bay ila muuqataa in toddobadanina labada ugu madaxweyn li inay shantan gooli la soo baxeen oo dulmigii iyagu ay sheeganayeen wasada ay sheeganayaan in lagu hayay ay barteen oo ay ku practice gareynayaan shantan saas ila muuqataa haddii sharci la waayo
radaarka afraad madaxweyne mar kale haddaan kugu celiyo si weyn buu uga dhex muuqday ololihii doorashadii madaxweyne Ciro dadku waxay dhahdaan siyaabo kala duwan markay u falanqeynayaan waxay dhahdaan xilal kala duwan dhinaca xukuumadda inkastoo wali wax saliguna laga qabo balse xukuumadda si weyn buu uga dhex muuqdaan baa la dhahdaa iyada arintaas ma ku muuqata horta waxay ku ololeysanayeen waana doo bannaan tahay dastuurka xaq u siiyay inay ololeyn karaan wax dooran karaan lana dooran karo laakiin mushkiladdu waxay tahay madaxweyne horteedba tusaale haddaan ku siiyo beeshan ka soo jeeday dee wasiir ku-xigeen way lahayd munaasib kalena way haysatay intaasoo gaasima waaxid bay lahaayeen oo shaqaynayay wax uga soo kordhay oo kaloon arkaya dee ma jirto haddii ay ku ololeysanayeen markaa waxbaad sadbursiimaad ku heli doontaan waxay noqotay wax lagu hunguroobay noqotay ismana qabanaysa dee ismana lahaa waan olole iyo masab inaad ku heshaay waa labaan isku xidhnayn oo waxaad ku ololeynaysaa waa mabda xisbigaan doortay mabda baan ku doortay inaan shaqo ka helo inaan ka waayay waxba kama bedelayaan mabda'ayga marka mabda'a ka muhiimsan mar waliba inaad olole loo dhex maro shaqo tag demada gaadhayaan waxayna u gaadhayn weli waxaa jooga dadkii ay lahaayeen weyn majority-ga ay bidayeen ayaa cabasho wada marka dadka gooni u baxay waa dad minorities bidaya sideedaba alliances haddaad aragto waa minor groupeska ayaa meel isku urursada aan kalsooni isku qabin aanan rabin inaanan loogu taag sheegan loogu tagrifalin awoodahooda marka adigu waa odhanifan aan middasan aaminsanahay tahay Cabdiraxmaan Xaaji Xasan aad baad u mahadsan tahay maadaama aad caawa nagula sugnayd studio telefishinka caalamiga ee TV arrimaha falanqeynta arrimaha hogaaska iyo xaaladaha guud ee dalka Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Awdalba inaad caawa goobtan nagula falanqeyso arrimaha ka taagan aad baan kaaga mahadcelin wadbanteeda ka mudan wadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna falanqeyn kooban oo na dhex martay aniga iyo Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal daawadayaal waa kamaradihii Cabdiwahaab iyo sidoo kale Amiin Sayd Cateeye anigu waa Jamaal Cumar Tabiicna waan ila socodsiinayay wareysigan wareys la mid inta ku kulmi doono dhamaan bahda TV waxaan leenahay fi amaanillah